waryaadahan hello waa qumayo xorxil diid waa anigii soo laabtay. Okay, so waxaan kusii soconaynaa sheekadii dheerayd ee ku saabsanayd Hatshepsut macnaynta magaceeda. waxaan dhex gelin doonaa videoga ma aragtay saddex ma aragtay plate ama the plate iyo sidoo magaceedu ugu qoran yahay because magacyada ay isticmaali jireen raacintii hore masaaridii hore wuxuu ahaa magaca kursiga ama magaca boqortooyada markaad hieroglyphka say ugu soo qoreen oo saddex kala duwan ayaan in yar macnaynaynaa oo iminka buuggii library-ga waaban u celiyay buug kalaan haystay oo ku saabsan buuggii ninkan faransiiska ay ka hadlayaan uu turjubay hieroglyphska kaas iminka ma hayo so dib baan ugu laabanayaa but buugganaan isticmaalaya buuggana waxa ku jira waxa weeye de buug taariikhda art iyo history of Egypt ku saabsan masaaridii hore 5000 years of civilization ilan waa dadkii civilization cawaanimada dadka ka saaray laakiin waa la diidayaa maadaama la ogyahay inay ahaayeen dad ku shayta dad madow dad Soomaaliya xitaa halkan buugga waxay ka hadlayaan Somalian bay ku leeyihiin xitaa Soomaalida way ku jirtaa buuggan punt iminka la rabaa taariikhda in la bedelo laakiin but glifya halkan ku jira ayaynu yar isticmaalaynaa sidaynu u turjubaynay because taariikhdii oo dhan bay si fiican kugu sheegaysaa dynastiyada waqtiga laga hadlayo waa kuwan sidan oo kale ay u qorayaan maaragtay magacyadii boqortooyooyinka asay ugu qorayaan playgadaas cartouche bay yidhahaan cartouche marka ereyada qaar gidaarada ku sawiran magacooda saad u macnaynaysid waxay ka wadeen marka buugga baa yar isticmaalayaa saddexda magac ee meesha ku qoran magaceeda but Hatshepsut aynu iminka waxaynu focus ka saaraynaa inta suud inta suud ee ugu dambeysa magaceeda marka suud marna set bay noqonaysaa oo waxa weeye st marka dee maxaa la yidhahaa vowelska adaa gelinaya vowelsku soo shaqalada ma af Soomaali a e o u adaa gelinaya marka set suit oo macnaheedu yahay turmoil xamaasad chaos disorder ama suit waxaba jirtay berigii dhaqdhaqaaqii daraawiishta nin la oranayay xaaji suudi muuha suudi suuti so suudka marna waxay u macneeyaan to dazzle qof markuu dazzle garaysid when you dazzle something I don't know Soomaali waxa lagu oranayo halkaasaan kusoo qori haddaan garto ama overpower bay mar idhaahaan suudkan sida kale haddaad u eegtid z letterka z bay noqonaysaa oo ka timid waxay dhahaan Phoenician waa dadkii Phoenicianku waa dadkii biyaha ag deganaa oo weli waa la isku haystaa dadkay ahaayeen dad I think biyo maalkan iyo dadkan biyaha degay ahaayeen oo zayn bay dhahaan zayn Greek letterka z kuna waa zeta oo magaca zayn af carabi ahaan wuxuu ku saabsan yahay beauty quruxda waxaanay idhaahaan quality and grace qofkani waa very graceful and goodness elegance zaynka lagu sheegayo oo suurat al-nuur suurat al-imran iyo suurat al-araf ayaaba quraanka ereygaa zayn macnaynaya waxay tahay so inta kale rabo inaan ku daro waxa weeye a very fascinating thing oo hadday dee qurux iyo waxaas laga hadlayo basically waxay ahayd naagtii ugu horreysay in history that's recorded oo use garaysa coal waxa la idhaaho oo markay punt timid waad kuwii frankincense mir iyo dee lubaanta iyo fooxa iyo geedo iyo waxaas waa kuwii hadiyad loo siiyey marka frankincense-ka ayay ka sameynayeen oo iyadaaba bilowday inay isticmaasho indhakuul cayn soo indhaha ma aha
xural caynta la raadinayo armayba dunida joogeen oo la arkayn ma fahanteen so sheekada indhakuusha ku saabsan aynu ka hadalno waxaaba jira reer habar yunis ka tirsan oo la idhaaho cool reer cool marna guul bay idhaahaan of carabi waa cool weeye ereygan maaragtay la idhaaho alkuhul alkuul waxaa laga hadlayaa berigii hore indhakuusha laga hadlayay ilan waa kuwa la idhaaho the eyes are the window to the soul indhahan nimankan markay nimankan waalana isqarxiye maaragta ku idhaaha jannadaan tegaynaa xural cayn naago indho waaweyn baanu arkaynaa powder la idhaaho antimony oo indhakuushana laga sameeyo ayaa jirta oo masaaridii horaaba bilowday lakaseed iyadaaba bilowday indhakuusha inay marsataan waadii arka indhaha in meesha kusoo sawirayaan masaaridu indhahay jeclaayeen oo the first cosmetic palettes oo indhakuusha iyo makeupkan laga hadlayo 3,100 BC before waqtigan nabi ciise waqtiga imika aan ku jirno milaadiga nabi ciise ka hor ayaa la isticmaalaya indhakuushan de reer coolna waa idii sheego habar yunis ka tirsan marka 18th centurygii around 1700 markuu ninkani de turjubayey ninka faransiiskii hieroglyphka turjubayey ayay bilaabantay inay u isticmaalaan alcoholka de alcoholka khamrigan la cabo inay isku magac ka dhigaan indhakuushii laga hadlayay sheekadii bay gediyeen ma fahanteen waxaynu ka hadli doonaa nin ka hadlay isaguna oo la idhaaho buugagiisa ama dee wuxuu qoray buugaguu qoraya oo 14th century ka tirsanaa oo la idhaaho gibir waa halkana ereygan iminka gibrish ka timid like gibrish qofkani waa gibrish buu ku hadlaya ma la fahmayo jacbur buu ku hadlaya pseudo gibrish ninkaas baa xitaa wax badan ka qoray kuulkii laga hadlayay alkuhulkii laga hadlayay powderkii antimony ahayd waxaa la oran jiray dadkii hore alchemistayaashii alxmiistayaashii the chemist dadkii hore oo badankoodu de sheekhyo bay ahaayeen imaamo ama waxaan reer galbeedku ay idhaahaan monks bay ahaayeen soo maaha marka waxaa layidhi qaar badan baa poison ku dhacay markay de antimonyga ama de kuulkan isticmaalayeen waxyaalo badan ama powderkan antimony noqonaysa oo de indhakuushana loo isticmaalo this is very interesting xitaa indhakuusha dhan baaba lagu sheegayaba markaas iminka maxay ka dhigaan sheekadan indhakuusha waxay idhaahaan yes carabtaa samaysa iyo waa indhakuusha iyagaa keenay and it's so funny anigu weligay horta indhakuusha waan jeclaa maalin bilaa indhakuul ma ihiin ma fahanteen anyways magaceedii baynu micnaynaynaa suit haddaad u fiirsadna waa darkness waxani waa suit waa blackness darkness suitku marna suit af carabi ahaan waxaa loo isticmaalaa web ama lash shaabuug marka shaabuugana sheekada waynu micnaynaynaa because there's a reason ay shaabuuga u sidatay iyo shaabuuga wuxuu yahay masaaridii hore shaabuug iyo wax krug la yidhaaha bay saas u sidan jireen marka taasna waa idin micnaynaya next video tani wayba dheeraatay war waa idin salaama